So aniga markii hore horta waxa Soomaaliya hadaata waxyaalo oo Mareykan degan waxyaalo badan arkaysa especially dadka oo Minnesota degan waxa aragnaa ciyaal badan oo ciyaalkeena ah oo addiction ku dhaco oo addiction ku rafaasan hooyooyin badan oo oynayaan waxa arkaynaa ayaamahan waxa aragnaa ciyaal Soomaali ah oo isdilaayo oo suicide sameeynaayo ani tan ahaan waxay ii taabatay samarka hadda la soo dhaafay gabar yar oo qaraabo aan nahay maalintii high school dhameynaysa jimce ahayd intay tagtay ee isdishay waakaas so taas kadib waxaan ballan iskaga qaaday inaan hadda ka dambe aan ka hadalno maaragtay ciyaalka Soomaalida oo isdilayaan ama waxa la dhaho suicide iyo jirrada la dhahay mental health iyo sida ciyaalkeena uga caawin lahayn السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا إذا عدا KZY SLB اللي دقيستو مقالة سان كلاود قبل كان مينيسوتا دقيستيال برنامج كان مانتا هو برنامج آد ومهمة برنامج كان وحا كاقاحد لدونا حانوناتك دميركا كودعا loo yaqaano mental health ayaanu ka hadlaynaa barnaamijkeegan maanta waxa iigu casuuman oo nala jooga nagala qayb qaadanayo waa Deeqa Yuusuf Deeqo waxay magaaladan deganeed muddo aad u badan waxa weeye hadda social worker waxayna ka shaqeysaa iskuulaadka magaalada sidoo kalena waa macallin laysin kale gobolkan Minnesota laakiin hadda waxay ku shaqeysaa ama ka shaqeysaa iskuulaadka magaalada waxa kale barnaamijkan ku weheliya oo maanta barnaamijkan wacyigelinta bulshada kala qayb qaadanaya arrimahan dhimirka iyo waliba waxa loo yaqaan suicide-ka ama qofka inuu nafsadiisa haligo oo nafsada iska qaado waxa barnaamijkan ku wehelinaya Cali Aadan cilmiga maskaxda ama dadka lagu daraasadeeyo Cali waxa uu hadda madax ka yahay Bridge Healing Center wuxuuna barnaamijyo horo nagala qayb qaatay oo ku saabsan arrimahan dabcan waxaan rabaa bal arinta qatarta leh oo aanu rabno bulshada in ay aad u ogsoonaadaan in aanu ku hormarno oo ah qofka inuu nafsadiisa haligo ama uu dilo ayaan rabnaa oo loo yaqaano suicide-ka marka ugu horeysa Deeqa barnaamijyo badan buu Cali nagala qayb qaatay dadka haddana si fiican bay isu yaqaanaan Deeqa Yuusuf intaan barnaamijkan bilaabin muddo magaaladan deganeed waxbaad ka baratay waana ka shaqeysaa wax yar oo kooban oo taariikhdaada waxbarashada iyo meelaha hadda ka shaqeysid marka hore nala wadaag ani waxa la yiraahdaa Deeqa Yuusuf magaalada St. Cloud waxa imaaday 2014 marka jaamacadda ka bilaaway degreega Masters of EL Teaching and EL maxalla iskuulka St. Cloud aan dhigtay markaas kadib 2016 macallinima talahay ku noqday districtka St. Cloud la shaqeeyaa ilaa haddana waa la shaqeeyaa hadda iskuul haddana ku noqda social worker aan noqday saaca dadka uga caawiya caafimaadka maskaxda ama mental health waxa la dhahayo aad baan ugu faraxsanahay waa ku aqaan muddo dadaal ku jirtay gaar ahaan waxbarashadaada farxad bayna noo tahay dhalinyaradii waxbaratay jaamacadan hadda barnaamijkan aan idinka soo duubayno inay barnaamijyadeeda nagala qayb qaataan waa maxay adiga ka shakhsi ahaan arrimahan sida gaarka ah waxyaalaha aad isleedahay qatar bay ku tahay bulshadeena ku nool Mareykanka ama gobolkan hadda magaaladan oo waxa loo baahan yahay in laga wacyigeliyo way programkan ama barnaamijkan uu kugu yahay arin muhiim ah in dadka laga wacyigeliyo arrimahan suicide-ka inuu qofka nafsadiisa gacantiisa ku qaado so aniga markii hore horta waxa Soomaaliya hadaata waxyaalo oo Mareykan degan waxyaalo badan arkaysa especially dadka oo Minnesota degan waxa aragnaa ciyaal badan oo ciyaalkeena ah oo addiction ku dhaco oo addiction ku rafaasan hooyooyin badan oo oynayaan waxa arkaynaa ayaamahan waxa aragnaa ciyaal Soomaali ah oo isdilaayo oo suicide sameeynaayo ani tan ahaan waxay ii taabatay samarka hadda la soo dhaafay gabar yar oo qaraabo aan nahay maalintii high school dhameynaysa jimce ahayd intay tagtay ee isdishay waakaas so taas kadib waxaan ballan iskaga qaaday inaan hadda ka dambe aan ka hadalno maaragtay ciyaalka Soomaalida oo isdilayaan ama waxa la dhaho suicide
iyo jirada la dhahayo mental health iyo sida ciyaalkeena uga caawin lahayn. waayahay cali sidoo kalena kusoo dhawow adiguna barnaamijka maanta. barnaamijkana wuxuu ku saabsan yahay arrimaha dhimarka iyo inuu nafsada qofka gacantiisa ku qaado suicide-ka. cali, guud ahaan gobolkan Minnesota ama wadankan Mareykanka dhibaato intee la eg ayay ku haysaa arrimahan suicide-ka? waxaad moodaa sababtan ku weydiinayna in dadka cadaanka ama wadan ku nool wacyigelintooda xoogaa ay sarreyso, arrimahan ay ku badan yihiin laakiin bulshadeena ay ku cusub tahay. arrimaha ma ahan wadankan Mareykanka aad ma looga ogsoon yahay? waa horta wandhawe Axmed, qofka inuu isdilo oo naftiisa gacantiisa isku dilo waa number marka la eego statisticska wadanka Mareykanka waa uu ka sareeyaa qofku ina la dilo. homicide-ka iyo suicide-ka number 2 soo galaya. qofku inuu gacantiisa inuu isku dilo waa number 2 marka la eego qofku sida u dhintay. marka aad buu wadankan ugu badan yahay, laakiin bulshooyinka kale wax naga fiican yihiin, aad bay ugu hadlaan, aad baa laga sheekaystaa sida loo ilaalin lahaa ama laga hortagi lahaa. laakiin waxaa moodaa community-keena lagama hadlo, hoos baa loo dhigaa, waa la yaraystaa. marka waxaan jeclaan lahayn inaan ka hadano arrintiina marka ka hadashid waxay kalin qofkiibuu information buu ka helayaa sidii ciyaalkiisa iyo dee yareerkiisana si uu la hadli lahaa buu garan lahaa. deeq, waa ka xumahay arrintaa hadda aad ka shanqarisay. arrimaha noocan oo kale ah sidee u taabataa bulshada, gaar ahaan qoysaska ay ku dhacdo arrinta noocan oo kale ah? So insha Allah hadda bishaan soo dhaafnay oo January waxaa jirtay case kaleeto where gabar yar oo high school ku jirto oo isku dayda inay isdisho. taas haddana isoo xasuusisay samarka ballanqaadka aan galay iyo ciyaalkeena waxay sameynayaan. haddana week jimcadan ma hadda jimcada la soo dhaafay wiil mara aaday dan ahaan u aaday dan waxaan ku maqlay wiil yar oo aan aqaanay haddana isdilay asagana yar oo high school ku jiro. so si kasta waxaan hadalkan iyo isdilmada uga aamusno aan dhahno annaka waxaan naguma dhacaan, waxaan u jeednaa inay had ciyaalkeena waxaan ay ku dhacayaan. so markaas kadib cali aan isla hadalna aan dhahan inaa wax ka qabanna waa ama inaa wax ka sheegna waa xaqay nagu tahay inaa laga hadlo waay. waxa dhaca badanaa waxaa waaye markii qof ciyaal Soomaaliya isdilaan, waa family waa u tagnaa, waa soo duugnaa, lacaga u aruurinaa, then bes halaas waa qof ka hadlo ma jirto. qofka wixii dhan waa ka aamusnaa. haddaa ka aamusno maxaa dhacay? waxaa sugaynaa cunuga kaleeto isdili doona ilaa intuu ka dhacayo. so hadda waa inaan ka hadalnaa, community-ga inay ka wada hadasho waaye, in wax laga qabto waaye. organization badanaa jirto, so ciyaalkeena waa inaa badbaadinaa. macali, waa maxay adiga fakarkaaga sababaha ay bulshadu ay u qariso dhibaatooyinka ku dhaca ee la xiriira ama mental illnesska la xiriira ama la xiriira sida hadda arrinkan aan ka hadlayno suicide-ka? ma qoysku ma ceeb iyo waxaas ayay ka baqayaan? waay ay qoysasku ayaan uga hadlin ama bulshadeena gudaheeda aan arrimahan looga hadal? waa su-aal fiican Axmed. waa dhaqan ahaan dhaqankeena waxa weeyaan inuu qariyo qofkii marka la eego diintiina oo qofku inuu isdilo xaraan ka dhigtay. mujtamaceen oo dhaqankii oo laga hadlin oo la qarsado oo ceeb ku ah, waxaasoo marka isku soo dirtay way adkaanayso qofka inuu uga hadlo. laakiin dhibaatada taala qofka inuu isdilo waa wax laga hortegi karayo oo ma adka, laakiin wayna calaamihii la garto. qofkii waalidka mareerkii ama asxaabtii markay qofku arkaan calaamadahaas meelay caawin ka raadin lahaayeen, meelay wax qaban karayaan, ma ogtahay taasaa ka maqan. marka hadalka waa loo baahan yahay, informationka waa loo baahan yahay, waana wax laga hortegi karayo lasoo yareyn karayo u yaraan. hadduu iminka wiilkayda ama gabadhayda xanuunkan qof suicide ku dhinto, waxaan samayn karayaa qof kale inay arrintaasi ku dhacin. haddaan ka hadlo ama informationka qofka dee waalid kale ama gabar kale ama wiil kale la tacaalaya, informationka helaan meeshaasaan tegi karayaa moogta oon caawin ka raadin karayaa, oo xishoodkii iyo ceebtii iyo waxaasna meel aan iska dhigo. ila wax waa naf weeyaan moogta, qof naf bani aadan baan badbaadinaynaa. ta kale Axmedow, qofku markuu istilayo
waqti bay qaadataa ma jiro qof habeenii maalin soo kaca istilay xanuunkan xoogaaba la soo tacaalayay marka waxaa loo baahan dadkii qofka family ah ama u dhow ama isku asxaab yihiin ama isku environment yihiin calaamahaas inay ka warhayaan oo la socdaan haddii qofna ku arkaan waxay qaban lahaayeen inay next step ka noqoto qof ka da'yarta ah ee Mareykanka ku koray ama wadamadan westernka iyo qofka da'da yar ee ku koray Soomaaliya oo kale waxa laga yaabaa noloshoodu korriinkoodu iyo waxyaalaha xaaladda kulnool inay aad u kala duwanaato ee qofkaasi Afrika ku nool ama Soomaaliya dhibka inuu early on ba noloshiisa uu la qabsado ama dhaqamada bulshadu ay ka duwan yihiin kan qof dadka da'yarta ah ee wadankan jooga anagu marka caruurteena kala mad dhigayna maadaama iskuul la aadaan internetka ay aad ula isticmaalaan sida kuwa kale nolosha ay la nool yihiin waa maxay waxyaalaha marka aad maqasheen oo sababa guud ahaan ama ha noqdo qofkaas Soomaali ama dad kale ha noqdee qof da'yar sababi karaya inuu nafsadiisa qaado bal marka hore deeqo aan ku hormaro waxyaalaha keeni karaya maxaa kamid ah okay waa kaaga jawaaba taas inta taas kaaga jawaab waxaan rabaa wax yar inaan ku darsado wuxuu cali dhahay maxaa la anaka dadka Soomaalida ma blame gareynayna ma nabeeno suicide-ka waa topic oo adag in dadka badan ma jecla inay ka hadlaan laakiin maxaa la dhahaa anaka hadda waa kastoo nagu soo batay soo inaan ka hadalnaa diini ahaan waa ognahay inuu xaraan yahay laakiin qofka su-aasha waxaa waa qofka muxuu isku dilay right qof iska baxay oo kasii maaga isku dilay adduunka ma jiro qof walba wuxuu sameynaa sabab uu leeyahay maxal Axmed wuxuu weydiiyay ciyaalkeena maxaa waa dibka hees ku Mareykanka ku koraayo ana hadda waxa ka shaqeeyay elementary school ka waa ka shaqeeyay middle school waa ka shaqeeyay last year high school waa ka shaqeeyay ciyaalkeena waxay joogaan wadan gaal so anaka waxaan nahay Soomaali oo qaxootiya ahaan Mareykanka imaanay dib badan aan soo marnay dibka aan soo marnay dhan muu bixin wili wuu joogaa ciyaalka Mareykan ay ku wada dhasheen school oo wadan gaalay ka aadaan waxyaalo badan aan marayaan waalidkii ciyaalka isma fahmayaan maar isku dhaqan ma aha badana hata isku luqad ma aha hadda middle schoolka ciyaalkan kala shaqeeyo iyo high schoolka iyo waqtiga ugu daran waa ay isfahmeeyeen pressure badana saaran schoola laga rabaa waalidka dugsiga laga rabaa maxalla waxyaalo badan laga rabaa pressure badan saaran dib badan haystaan mar dibka badan haysta waalidkooda mana fahmi kara hata because schooladan ma dhiganin dibka waxyaalaha ee maalin walba ee arkayaan ama oo dibka soo gaaraya ma ka warhayaan badana waalidka ay naftirkooda way dhibaysan yihiin shaqo iyo waxay ku mashquulsan yihiin soo ma weydiinayaan soo ma la iska warhayo ciyaalkana nolol ay ku leeyihiin waalidkana nolol ay ku leeyihiin waxaan ogaanaynaa cunugii markii dibkii xanuunka intuu ka badtay ilaa markii ay gaarto cunugii isdile markaas la dhahayaa haye maxaa dhacay maxaa cunugan u keen inuu isku dilo laga yaabo haddaan sii fiirin lahayn oo ciyaalkeena si fiican inaan uga warhayna waa maxay dareemayaan maalin walba maxay maraan dibka soo gaara maxaa waaye cuntaan siinaa guriyaa siinaa taas ma ku filno waxay u baahan yihiin maxaa la dareenkooda inaan ka warhayno dib oo maalin walba soo gaaro inaan ka warhayno middle school iyo high school aan Mareykan ku aadaysid iyo even jaamacada ku aadaysid ma fududo aad iyo aad u adag tahay dhibaato badan ay la kulmaan علي أنا سؤالش waxaan rabaa asaga inuu kala jawaabo laakiin Ali laba eray oo ay tiri deeqo ayaan waxaan rabaa bal dadka Soomaalidan inay aad uga fiirsadaan iyo alina uu sii raaciyo jawaabtiisa ilmaheena ma helaan waxay ku mashquulsan yihiin badana school iyo dugsi weekendiga waa tacaruurtan oo dhan dugsi bay wada dhigtaan weekdays-kana school bay dhigtaan iyagoo yaryar waxaa laga yaabaa sidii wadankeena ilmuhu waqti ku filan oo ciyaar uu ku ciyaari karo ilmaheena gaar ahaan ma helaan halka aad fiirisid ilmaha cadaanka ay helaan waqti badan oo ilmuhu football ku ciyaaro qaar uu siiyay waalidkood geeyay maaragtay sports events bay every afternoon geeyaan waalidiintu arrintaasi waxaad moodaa inuu saameyn energy-ga carruurta bannaanka u bixi lahaa inay gurigii la tagayaan frustrationka waxay kaloo deeqa sheegtay arrinta dareenka xagga feelinka waalidiinteena inayn u tababarnayn ilmaha si dareenkooda loo farxad geliyo oo ku jecelahay loo yiraahdo wax fiican baad samaysay
oo ay weliba ereyo adag waalidiintu isticmaalaan marka waxyaalaha noocaas oo kale ah saameyn ma ku samayn karaan ilmihii maskaxeed oo ilmihii inuu cuqdad qaado ama feelinkiisu hoos u dhaco dareen wuu sameynaya Axmed deeqana wax badan bay ka hadashay oo dhibaatada ka socota iskuulaha wiilkii ama gabadhii waxay ku nool yihiin laba adduunkii iskuulka oo casharihii waxay la kulmaan wax badan way kala kulmaan iskuulka haddii noqoto racism cunsuri ahaan haddii noqoto cagajogeen afkana laga hadlo afka laga wareero ama dhacan loo qaado haddii noqoto siday u eeg yihiin gabar xijaab xiran xijaabkeeda lagu caayo wiilashoo kale oo lagu caayo timahooda iyo kalarkooda haddii laga joogaan iskuulo laga badan yahay marka dhibaatooyinkaa badan bay la kulmaan wiilashiin iyo hablahaynu markii guriga imaadaana waa environment kale waa adduun kale weeyaan waalidkiiyo dhaqankeenu waxa weeyaan waalidku xunbuu kuu sheegay aad wax uma sheegi karaysid lama hadli karaysid iminka uu isbedelayo dhaqankiin waalidkiina soo fahmayo arrintan inay aad u muhiim tahay inaa wiilashii iyo hablihii la hadlo laakiin marka eegtid da'da markii 15 jir 14 jir waa markuu qofku soo qaangaarayo soo korayo da'daasu Soomaaliya halkanba qofku aad buu adeegay da'daas markuu marayo laakiin markuu Mareykan joogana dee waa ka sii adkaanaysa waxa ku dartaa arinta ka hadasho dee opportunity kale inuu dibadda u baxo sport soo ciyaaro oo school u dhaxeeyo iyo dugsi u dhaxeeyo inta dhaxana wax kale aan jirin moogti duruufo keen karaysa waalidkii dee awoodii lahayn dhaqaalahaan challenge-ka lahayn waqtideeba inuu shaqo qoro ku jira marka caruur wiilashii hablahiina ku soo harayaan meel adag oo meel u dhaxay ama wiilasha kale ama hablaha kale oo isku da'yihiin arkayna dhar fiican haystaan ama kaba fiican haystaan dee waalidkooduna lacagta iyo dhaqaalahaas awoodda u haysan marka waxay sameynayaan wayna isku combine gareeyaan anigu dee asxaabta waxaasi haystaan anigu ma haysto taasna waxay keenaysaa wax niyad jab moral jab amar jabel waalidkiina hadduu la hadlayn ama siduu la sheekaysan lahaa ama kasban lahaa kalsoonidii ciyaalkiisa oo taa awoodda ama fikradda haysta ama siduu uga bilaabi lahaa baan garanayn taana dhib bay keentaa because wiilkii caradaas iyo cuqdadaas oo dhan buu isku haynayaa meel qolbu isku soo xirayaa way adkaanaysaa hadhow qofkii inuu caawin weydiisto sidoo dhibaataysan taasna way keenaysaa dhibaatadaas inay sii kordhiso laakiin wax badan bay iskuulka kala kulmaan oo ka mida dee cunsuriyadda iskuulkii oo iyadoo la rafaaday iskuulkii because aqoontii qofka hadda waxa ka soo qaatay qof waxay 5 sano 6 sano Afrika ka yimaaday wuxuu baahan yahay caawin badan buu u baahan yahay sidoo la soo gaaro moogtay wiilasha kale iyo hablaha kale hadda Mareykan ku soo koray iyo kuwii ku soo koray hadda la tacaalaya moogtay tacliintii markii la tacaalaana dee suboorkiina guriga ka waayaan iskuulkiina ku rafaadsan yihiin meel cidli ku soo harayaan taasaa keenaysa dhibaatadaas deeqo iskuulaadka ka shaqaysaa waliba waxaa la shaqaysaa maadaama social worker tahay shaqadaada gaarka ah waa inaad ka warqabtid waalidiinta ardayda iskuulkii wixii aad u dhaxaysid sababahaasaa keenaya inaad dabcan wax badan aad ogaateed wadankan Mareykanka arrimaha aadka looga hadlo oo caruurta niyad xumada u keenta ama niyad jabka hadhowtina mararka qaarkood ka lifta wadankan violent in cunuga noqdo waxaa ka mid ah sida loola dhaqmo ama waxyaalahan iskuulaadka loo yaqaan bullying in cunugii waxyaalo lagu yiraahdo saameyn ay ku samayso maskaxiyan arrimaha noocaas oo kala ah qayb intee la eg bay ka qaadan karaan maxaad uga sheegi lahayd waalidiinta Soomaaliyeed inay si fiican ay ula socdaan arrimaha loo yaqaan bullying oo ah cunuga in la aflagaadey ama la xumeeyo iyo cuqdada ay ku keeni karto caruurtaas cunuga so bullying waa wax jiro waaye bullying way ku dhacdaa ciyaalka waana wax jiro waalidka waxaa laga rabaa inay ciyaalkooda la socdaan hadda cunugaada og tahay dhibka soo gaaraya iskuulka maanta maxaa sameysay maxaa saaxiibaha wax ma dhacay cunugaada hadda la socotid insha Allah waa ogaanaysaa noloshiisa waxa ku dhacayo laakiin ciyaalkeena hadda la hadlin oo la sheekaysanin oo la soconin dan ma ogaan karno soo cuniga waxa waa inaad dareensiisid inuu ku imaan karo oo wax kasta uu kaala hadli karo soo hadhow markuu dib cunigaas haysto haduu qof bully gareenayo inuu
waxaas uu ku sheegan karo saa ugu dacwootid hadda alxamdulilah iskuulka St Cloud buulinimada aadaa loola dagaaltamaa ciyaalka anaka dhanaa u sheegna haddaa cunug qof ku dhibo ama cunug saas ku fiiriyay noo soo sheeg soo cunug kasta wuxuu ku xiran yahay qof caawiyo oo uu la sheekaysan karo hadday wax ku dhacaan soo ugu sheegta soo hadhow bullying ama dhib uu ka soo gaarin laakiin waalid ahaan waxaa laga rabaa cunugaada oo hala kasta aa jiro ilaa kindergarten ilaa ay galaaska 12aad ahaade la soco weydii iskuulka maalin walba muxuu ku soo arkaa maxaa ka dhaco saaxiibkiisa weydii saaxiibteeda weydii soo ogo cunugaada haddaa la socodid dareenkiisa waxyaalaha dan waa ogaanaysaa laakiin hadduu wax kuu sheego aana khaylinin adoo degan informationka ka aruurso hadhow haddaa wax qabanaysa adaa qaban kartid iskuulka wacaysa ama iskuulka aad tegaysid ama caawinaysa aday ku jirtaa laakiin ciyaalka waa inaan soo dhawaysanaa se waxay dhibka haysta ay noogu keensadaan waxaan rabaa su-aashan labadiinaba inaad weydiiye laakiin cali baan ku hormarayaa cali haddii caruurtu niyadjab ama dhibaatooyin ay haystaan waa maxay waxyaalaha qatar waalidku ay tahay inay la socdaan ilmahaasi siday u caawin lahaayeen maskaxiyan ama jir ahaan ama si kastoo ay u caawin karaan waxyaalaha lagu garan karo oo waalidiinta ay tahay inay la socdaan maxaa ka mid a mararka qaarkood waxaa jira ilmo yaryar waalidiin baynu wadanahay aad arkaysa mararka qaarkood inuu ilmihii kale la dagaalamayo ama uusan faraxsanayn ama ku yaraa la dagaalamayo cabasho sheeganayo laakiin waalidiintu ay cabashadaas cunuga ayaan muddo badan ayaan ka hoos qaadan ama wax rabo marka waa maxay waxyaalaha lagu arki karo caruurta si waalidiinta ay uga taxadaraan haddii uu cunugaasi niyadjab haysto waa su-aal aada muhiima weeyaan niyadjabka ama depressionka waxaa lagu dhaho af ingiriisida waa the main reason oo keena qofku inuu isdilo badankii qofku markuu depressionka ama niyadjabka ama rajaba beelo waqti bay ku qaada markuu kusoo jiro bay gaadhaa ilaa marxaladu inuu qofku isdilo waxaa lagu garan karaya waa sida sheegtay qofkiiyo dhaqankiisa isbedelay wixii qofkiiyo oo caajis ama daal xiisaba waxba u lahayn inuu wax qabto oo iskuulkiiba ku adagtay inuu tago iskuulkii hadduu tagano maantana dacwo socota dagaal buuq qofkiioo raba inuu qolkiisa waan ka soo baxayn cid hadalkiisoo yaraaday ama yaraatay asxaabkii oo dhan iska soo jaray waxaasoo calaamad lagu garto weeyaan badankii markuu qofku ku jiro depressionka adugu muddo waalidkuna calaamadaha soo arko hadhuu wuxuu keenayaa hadal inuu dhaho aronkeer oo kale waxaan rabaa inaan isdilo waxaan rabaa inaan seexdo aan soo kicin waxaan rabaa inaan adduunyadoo dhan ka dhammaado waxaan rabaa inaan ogaado haddaa dhinto mise qof baa ii imanaya marka la aasayo marka la duugayo waxaasoo dhan waxa weeyaan waa hadal waa kor hadal weeyaan wuxuu ku tusayaa sign qofkii uu raba inuu isdilo qofkii markuu 17 jir lahay 16 jir badankii waalidku ama waxay u fiirsadaan waxay dhahaan waxaan waa iska qofkii oo iska drama sameynaya weeyaan laakiin hadalkaas markuu soo noqdo waalidku inuu u fiirsado weeyaan ama asxaabkiisu inuu u fiirsadaan hadalka ina la yaraysan qofku markuu rabo inuu isdilo uu soo sheegaa uu sii sheegayaa 2 3 4 wuxuu ka oranayaa waxaan rabaa inaa bos inaa isku tuuro marka waxaasoo haddaa maqashid kabacdi waxaa arkaysa qofkii oo isku tijaabinaya marka hadal bay ku bilaabta kabacdina waxay noqotaa inuu isku dayo marka calaamadahaas inaa loo fiirsado oo taana waxay ka timaadaaba asaaskeeda waxa weyn qofkii niyadjab iyo dhaqankii oo isbedelo aan ka soo hadlay hadeer waxaan rabaa bal barnaamijkaygan haddii ilaahay idmo 2 inaan u qaada dhigno ama aan uga kala hadalna barnaamijkaygan arinta la xiriirta suicide-ka iyo mental healthiga ama mental illnesska dhibaatooyinka micnihii keena marka waxaanu hadda ka sheekaynay ilmo caafimaad qaba oo waalidii uu ku haysta Mareykanka dhibaato soo bilaabatay depression cunuga wixii oo niyadjabkii oo ku weynaaday taasoo gaarsiin karta cunuga marxaladan hadda aan ka sheekaynayna oo suicide-ka ah isolationka
waa mid ka mid a waxyaalaha ilmaha lagu garto ilmahaas inuu niyad jabsan yahay ama depression ku dhaco wadanka waxaad arkaysaa waalidiintu saan idiin sheegayba inta badan caruurteena markaad Soomaalida populationkeeda fiirisid maadaama wadankan aan ajnabi ku nahay qaxooti ku nahay ma aan helno waxyaalaha ay dadka kale ay haystaan ilmaheena markuu iskuul ka yimaado badanaa qolbuu galaa internet ku daawada waxaan rabaa deeqina bal adiga arintan dila fiirisid internetka TikTok Instagramka Facebook YouTube ilmihi waxa maskaxda uu jamgareeyay saameyn badan uu ku sameeyay xagga waxbarashada tahay self esteem kooda inay tahay iyo mararka qaar kood influence-ga ay ku sameyn karaan dadka ay daawanayaan marka ku kale ahaanshaha waalidku uu internetka ilmaha loo dhaafay qol la galay iPod-ka ama telefoonka iyo waliba connections-ka dadkan aan la aqoon la sameynayo maxaad ka oran lahayd waxa waalidiinta arinta ku aadan Ahmed wallahi topic-an waa topic aad weyn internetka iyo ciyaalka lagu dhaafay kaliya maalmo ka la qaadan kar laga hadlaayo laakiin inta taas ka hadlin waxa rabaa hal wax inaan ku daro Cali wuxuu dhahay depression-ka another sign ama wax kale lagu garan karo especially wiilasheena waxa waa xanaaq badan that's a sign depression qof dadka qaar kood way hurdaan dadka qaar kood energy ma haystaan laakiin wiilasheena iyo gabdhaheena hada aragtay ay ko iska xanaaqayaan wax kasta ka xanaaqayaan ma la hadli karo waalidkan uu ku daalaa taas micnaheedu waxa waay depression qofkan hayo internetka iyo telefoonada horta hada u fiirsatid hooyooyinka Soomaalida iyo aabooyinka Soomaalida ciyaalkeena badanaa cell phone haystaan telefoonkan waxyaalo qaar koodna waa uu ku fiican yahay waxyaalo qaar koodna uu ku xun yahay aan xumaantiisa ka badan fiicnaantiisa and also had iskuulada cunug kasta waxa laga siiyaa ama iPad ama Chromebook wax la dhahay oo computer gacanta loo galiyo markii loo galiyo iskuulka markay joogaan waa la monitor gareeyaa waa la ogyahay meeshay galayaan iyo meesha waa laga xiraa meel xun haday galaan laakiin guriga markay joogaan maalinta marka iPhone gacanta u galisay ama computerka ay haystaan meel kasta iska aadayaan internetka wax xun way ku jiraan wax fiican way ku jiraan hadda ciyaalkeen dib badan oo haysto oo iskuulka hataa galaasada ay ku dhacayaan waxa way addiction game ku yihiin maraba markay aadaan guriga game inta qolka isku soo xidhaan game ciyaarayaan gamekaas naftirkiisa khatar way qaar kooda because dada jir oo soo galaayo oo kaala hadlaayo oo iska dhigay ciyaal yar ahaan ciyaal yar so waxyaalo dhibaato waaweyn ka dhici karo so internetka ciyaalka waa in lagu ilaaliyaa kuwa oo dhakhtarinka wax barteen waxay dhahan ciyaalka looma ogolo 2 saac kadib internet inay isticmaalaan 2 hours bas ku filan maalintii 2 hours wayna badan tahay 2 saac kadib inaad ka xirtid waay aana ka ilaalisid so ciyaalkeen internetka in laga ilaaliyo waa in lala socdo wixii internetka ku sameynayaan waan because waxyaalo badan dib kasta ag soo dhici karo waa run deeqa sida aad sheegtay barnaamijkani waa barnaamij aad u weyn hal barnaamijna laguma soo koobi karo wacyigelin badanna bulshada way uga baahan tahay in arrimahan laga siiyo waxaan rabnaa bal inaan u gudubno qaybtan kale waxaanu si gaar haddaan uga hadlayn arrimaha suicide-ka haddii waxaa jira arrimo aan arkay oo waxyaalaha la yiraahdo therapy Cali dadkeenu si fiican uma fahmaan haddii ilmihii aad ogaatid inuu depression hayo aad dareentay ilmahaagu inuu xaalad dhimir ay jirto dabeecadiisii xumaatay yaad la kaashan kartaa waalid markaa tahay oo arrimaha ka caawin kara in cunugii maskax ahaan iyo jir ahaanba oo caafimaadkiisu helo Cali bal ku soo dhawow therapy waxa weeyaan waa qof oo la hadlay kariga qofkii markuu depression ku jiro iyo xanuunahan dhimirkaba ku jiro hadalkaas wuxuu keenayaa qofkii inuu space helo ama chance helo inuu ku nafiso waxa calooshiisa ku jirta inuu soo saaro intuu dee sidoo uun calooshiisa ku jiri lahayd oo dhib kala keen lahayd qofkii markuu hadlo xoogaa u nafisaya badankii hadduu qofku soo maro imka waxaan ugu badanba community ahaan waxaan ugu badan labadii waalid oo kala tegaya markii labada waalid kala tagaan taasi dhaawac bay keenaysaa waxay u keenaysaa caruurtii bay dhaawac u keenaysaa caruurtii markii badankii ma helaan chance oo ay fahmaan wax dhacaya markii labada waalid kala tagaan waxa imanaya isbedel badan baa imanaya waalidkoodii ma arkayaan hooyadii iyo meel kale u guurayaan
isbedelkaas oo inay fahmaan weeyaan isbedelkaas uu saameeyaa iskuulkoodii wuxuu ku saameynayaa asxaabtoodii ka tagaan meel kale u guuraan waalidkii jeclaayeen oo ka maqnaanayaan marka waxay u baahan yihiin meel ay ka hadlaan arrintaa fahmaan process gareeyaan meeshaas qofku therapy ka faa'iideeyaa imika maasha Allah waxa moodaa community ahaan waan soo fahmaynaa arrintaasi inay aad u tahay especially marka la eego hablaha aad iyo aad bay u soo doontaan servicekaas wayna fahmeen inay tahay wax oo dawo ah dawadu kaliya maaha kalini waxay noqon karaysaa just hadal qofku inuu hadlo uu nafiso oo helo qof uu aamini karayo badankii xiriirkii waalidkii caruurtii aad buu adag yahay waalidkii badanka waan ka baqnaa waan xishmeynaa marka uma sheegi karayno wax walba marka waxaan u baahanahay qof kale oo saddexaada inuu qofkii ku nafiso helo qofkii oo dhaqankiisa iyo diintiisa fahmaya marmarna qasab maaha inuu dhaqankaadii qofku xura qof dhageysto marka chance-kaas waa aad u muhiim hadduu waalidku fahmo inuu wiilka ama gabadha inay u baahan yihiin therapy inay u raadiyaan oonu la sugin ilaa inta xaaladdu sii xumaato oo ka hor inuu qofku inuu raadiyo waya deeqa su-aashan aan rabay inaan ku weydiiyo waxay la xiriirtaa gaar ahaan gabdhaha waxaad ogtahay dhaqan ahaan soomaalidu waxay leedahay sida ay ula dhaqmaan gabdhaha waalidiintu iyo sida ay ula dhaqmaan wiilashu way kala duwanta gabdhuhu waxay la kulmaan ilaalin badan ama control badan waxaa xorriyad badan ma laha dhaqankeenna iyo diinteenna awgood sida ay rabto inay u labisato cidda ay rabto inay la hadasho meesha ay rabto inay aado sida hadda aad sheegteen caruurta dhibka badana uu ku dhaco markay sideeduna dhib badan tahay qaangaarka markay noqonayaan waalidiinta Soomaalida maxaa ka oran lahayd gaar ahaan gabdhaha lagu korinayo wadamadan inay gabdhaha bal aad ula sheekaystaan ayna la socdaan xaaladooda ay qalbigana loo dejiyo ama loo dhiso gabdhaha bal maxaad ka oran lahayd arrimaha gabdhaha ku aadan karaan su-aashaas inta ka jawaabaan cali wuxuu ka jawaabaa wax yar ku daraaya dadka qaarkood depression markuu ku dhaco laga yaabaa depressionkooda inuu aad khatar u yahay soo marmar medication lagu bilaabaa markaas kadib hadal loo diraa therapy-ga badana medicationka iyo daawada iyo talk therapy labada waa la isku wadaa dadka qaarkood Soomaaliyeed badana waxay ani hadaa qof u tago la hadla muxuu ii taraaya qof la hadlaysa waxyaalo badan oo ku tari karaa qofkaas fikirkaadu bedeli karaa dhaqankaadu bedeli karaa maxaa la dhahaa waxyaalo badan ogeyn uu ku fahansiin karaa maxaa la dhahaa daawadana culeyska badan oo depressionka keen hurdada la'aanta cuntada cunin waxaas oo dhan ku caawinaysa ilaa ka caafimaadaysid markii dambe laga yaabaa daabi iyo hadal inaa labada u baahnayna caadi iska noqotid noloshaada iska wadatid soo taas inaad dadka saas u fahmaan rabaa mid labaad waxa way gabdhaha ka hadlaysa waxa way gabdhaheena iyo wiilasheena isku mid loolama dhaqmo wiilasheena waa la iska sii daayaa waxbana lagama warhayo gabdhaheena gacanta lagu hayaa labadaba uma fiicno wiilasheena waxay u baahan yihiin in la ilaaliyo gabdhahan waxay u baahan yihiin in la nafisiyo oo waqti la dhageysto oo laga yeelo waxyaalaha rabaan hadda gabdhaheena Soomaalida badana oo iskuulada middle school iyo high school aadaan badana dagaal badan ay ku dhacaan waalidkooda especially hooyadooda la dagaaltamaan markay gabadhu iskuulka ka tagto middle school iyo high school waxay leeyihiin waxyaalo badan maadooyin badan ay badanayaan homework ay leeyihiin assignment ay leeyihiin projects ay leeyihiin group dad isku imaana waxyaalo laga rabo ay leeyihiin markay guriga tagaan waxa la cunigaan hay cunto kari guriga hagaaji markaas kadib dugsi aad gabadhii waqti waxyaalaha ay wax ku baranaysa ay ku ma haysato wiilkii waa kana wiilka qol ku xiran yahay telefoon ama game ciyaaraya so asagana wax ma la caawin masuul lama barin gabadhina kasto cariiriye dareemaysa so waalidku waxa waa kasto inay fiiriyaan waaye wiilkan wuxuu u baahan yahay gabadhana waxay u baahan tahay ee labadaba dhageystaan waxay u baahan yihiin ay siiyaan ina faham another thing Ahmedo waxa loo baahan yahay waalidkeena Soomaali marka joogni inta isku mid ma aha isku dhaqan ma aha so in si parenting ama waalidnimada ciyaalka loola dhaqmo oo teenage ina barano waay marka barano wiilkeena iyo gabdhaheena caawin karnaa also ina barano waa iskuulada waxbarashada middle schoolki high schoolku aad ay u adag yihiin in la caawiyo ciyaalku u baahan yihiin waxaan rabaa cali inaan su'aashan aan ku weydiiyo maadaama hadda xarunta mental
bridgelin adigu dee madaxa ka tahay cilmigan aad barateen arinta dawooyinka dadka markuu qof walba uu dhakhtar u tago hadday hayso xanuunaadka nooc walba malaria ka bilow madaxu hadduu ku xanuunayo caloosha hadday ku xanuunayso qofku dawada uu dhakhtarka siiyo su'aal iskama weydiiyo Soomaalidu dawooyinka loogu qoro xagga dhimirka ama maskaxda ama way dhinaagarayaan way daadiyaan way tuuraan waalidiintuna cuqdad badan ayaan arkay oo ay ka qabaan xanuunaadkan yaryar ee caruurta marka qaarkood ku dhacdo oo dejinaya inay wax dawo siiyaan marka arintaas baan jeclaan lahaa maxaa kalifa dadka dawooyinka kale ee madaxa ama malaariyada ama xanuun walba loo siiyo inay qaataan wixii ku aadan madaxana ay diidaan waan arkay dad badan oo inkiraya inay xanuun dhimirka qabaan oo laakiin qaba oo dawadana diidaya way jirtaa because waxay maqlayaan qof kale oo storydiisa sheega oo dhahay dawadaasaan qaato way iga sii waashay kuma fiicnaan way iga sii waashay marka dawooyinku isku mid maaha waa inuu qofkii dawadii fahmo waxay qabanaysaa aniga cunugayda ama gabadhayda ama aniga shakhsi ahaan dawadaas say ii saameynaysaa dhakhtarkii su-aashii lama weydiinayo marka waxaa laga dhageysanayaa hadal qof kale oo dawo kale macquul waa suurtagal dawadaas in qofkaas in dhaawac kale gaarsiisay ama faa'iido badan u soo kordhin laakiin qofkaas iyo adiga iyo caruurtaadu isku mid maaha qofba dawo sibay u saabaysaa dawadiina haddii shaqayn weydo ama wixii laga rabay qaban weydo waxaa la rabaa dhakhtarkii lagu noqdo la dhaho dhakhtar dawadan ma shaqaynaysa iga bedel ama dawadan dhaawac kale keentay naga jooji laakiin dawadiina anuu soo qaato meel ku tuuro ama isticmaalin badankiina ma tuuraan Axmed aqalkii taala taasaa dhibaato keenaysa especially hadduu joogo guriga qof oo raba inuu isdilo badankii dhalinyaradu markay rabaan inay istilaan number 1 waxay isku dilaan waa dawo badan bay xaddi dhaaf u qaataan marka dawadii haddii la isticmaalayn oo macna ma sheegayso in aqalka taalo laakiin taasa wasaskaas waa jira qof dawadii baan ka baqaynaa badankiina mujtamac ahaan especially communitykeena qofkii markuu xanuun dhimirka lagu ogaado waa mar xaalad degdeg tahay badankii dad badan bana soo waca dhahaan wiilkeeda gabadheeda xaaladaasi ku jirtaa waa marka xaaladii crisis ku jirto waa xaalad immediately markaasoo kale dawada waa loo baahan yahay because dawadii qofku waxay soo dejinaysaa qof meel sare maraya xaaladiis way soo dejinaysaa waxay ka dhigaysaa meel dhexdhexaad qofkaasa markaas waa la hadli karaysaa laakiin qof kacsan oo dagaalamaya oo buuqaya lama hadli karaysid waxbana kaama yeelayo qofku inuu soo dogo in qof habeen 4 cisho seexan Axmed lama hadli karaysid marka hore qofku inuu seexdo nasto cuno markaasaa la hadli karaysaa la sheekaysan karaysaa moogta marka dawadaasi camal muhiim bay leedahay oo inuu waalidku saa u fahmo dawadan wax sii soconaya maaha dawadan cid kugu qasbaysana maaha haddaa qaadatid week ma 10 cisho dhakhtarka ku noqotid tiraahday dhakhtarka badankiina markay ku siinayaan waxay ku siiyaan follow appointment bay dhahaan ina ku soo noqotid oo uga waramtid laakiin haddaa uga waramayna buu sheegin ina isticmaali ama takalaana arko Axmed waxa weeyaan dawada way qaadanayaan dawadii 3 jeer baa loo qoray 3 maalintii inuu 3 jeer qaato dawadii hal maalin hal waqti buu qaadanaya marka saas ku dhakhtar noqday Soomaalida wala dhakhaatiir miiran weeyaan moogta dawadii 3 jeer baa lagu rahay qaado waa ina 3 sidii dhakhtarku ku sheegay ina qaadat laakiin haddaa hal mar qaadatid ma shaqaynayso dawadii sax ma garataasa dhibaatadaasna waa taala sax waayahay waxaan rabaa haddaba dhibaatooyinkan ama depressionka ama mental illnesska marka ay noqoto qof weyn badanaa intaa waa laga hadlaa haddana waxaan si gaar uga hadlaynay dadka da'yarta iyo dadka waaweynba waa meelaha ay dadku hadda caawimaada ay ka heli karaan maxayse idinla tahay adiga iyo deeqaba bulsho ahaan ama wacyigelinta ha noqoto ama in arrimahan wax laga qabto maxay idinla tahay fikirkeena sameelahee dadku tagaan oo arrimahan dhimirka wax looga qaban karaa waa ogaa magaalada meelo badan baa ku yaalo caafimaadka mental healthiga iyo qusiya mental illness ku soo dhaw horta waxay ku xirantahay arintu meeshii maraysa haddii arintu tahay crisis ama arin degdeg ah hadda waxaan ka hadlaynay qofku inuu rabo inuu isdilo ama isku dayo
markaasoo kale xaaladdu waa xaalad emergency, waa xaalad degdega weeyaan magta laga fiican yahay 911 haddii xaaladdu qofku dee taagantay qofku inuu gaari isku tuurayo ama qori isku qaadanayo laakiin qofku hadduu sariirta jiifo oo leeyahay waa rabaa inaan isdilo waa xaalad emergency taasoo kale booliis ma baahna waxaa jira nambaro ama dad ku takhasusay iminka magaaladan waxaa ka jira meel la dhaho mental health crisis response team baa jira waa 24 hours weeyaan nambarkooduna waxa weeyaan waa 320-253-5555 waxa weeyaan waa team shaqeeya 24 saac qofkii markuu hadduu rabo inuu istilo ama ka hadlayo ama waalidku ka wawarsan yahay xaaladaas oo arin madax xanuuna maskax xanuunahan dimarka ku saabsan nambarkaas uu wici karaya qoladaas uu imanaya waa niman wax u bartay ku takhasusay turjumaana la socda number kala jiro oo la dhaho stateka Minnesota u khaasada waxa la rahaa 988 numberkaas waa text message waa text garaynaysa way kula hadlayaan text message hadda u baahan tahayna way qoladan bay kugu soo xirayaan qofku hadduu dee meel cidla ku jiro isolation ka sheegaysa qol isku soo xiray oo noloshadu ciriiri ku noqotay oo cidna la hadlayna jirin numberka text message uu diray waliba dhalinyarada oo text message ka aad ugu fiican waa 988 bay ku dhufanayaan bas way la hadlayaan numberkaasuna waa 24 hours arinta haddii degdeg hayn oo xanuuno dimir jiraan meelo badan baa jirta xarunteena ka mid ah Bridge Healing Center oo ka shaqeeya therapist oo la hadlaya rag iyo dumarba oo Soomaalida yaqaana haddii noqoto dhalinyaro haddii noqoto dadka waaweyn meelo kalena way jiraan laakiin waxay ku duwan tahay arintu maarin degdeg ah ya ama arin oo maalin laba cisho sugi karayso way kala duwan tahay Axmed wax kala kugu daraa iskuulka dadka ka shaqeeya ma aragto also resource waaye macunigaada hadduu iskuul aada wuxuu qabaa counselor wuxuu qabaa social worker wuxuu qabaa mental health person oo iskuulka dhex joogo and also macallimiintii dadka iskuulka ka shaqeeya ciyaalka way ilaaliyaan soo haddaa aragno cunugoo iskuulka badanaa imaanaynin waxaan rabnaa inaa ogaana maxaa u imaan waaye marmarka qaarkood way hurdaday kasoo kici waayeen waxaa also fiirnaa ciyaalka cuntada cunaynin ciyaalka daalan ciyaalka galaaska ku dhex seexanayo ciyaalka oo waxba iskuulka hanwarka iyo waxyaalaha laga rabo dhan samaynaynin ciyaalka oo maanta dhan qofna la hadlaynin ciyaalkaas waa la ogyahay macallimiinta dadka kuwaas arkaan amaanay iisoo gudbiyaan ama social work qof kale u soo gudbiyaan soo iskuulkana waa la socdaa in waxa isku daynaa cuni kasto inaan ku xirna hal qof uu hadduu dhib haysto in uu la hadlo oo dhaho la socdo maanta ma imaanin halahana iskuulka maqneed macallimiinta waxay dhahan galaaska ku seexanaysaa qadiyo quraac iskuulka kama cuntid maanta dhan waa malumsan tahay maxaa jira what's going on maxaan kugu caawinaa so waa lala hadlaa ciyaalku waa lala hadlaa laakiin waalidka waxaan rabnaa isxaan inay noo sameeyaan markii macallin ama counselor ama social worker ee kusoo wacdo ee dhahda cunugaada kastoo waa I'm concerned about your child I'm worried about your child kaale aan ka wada hadalno maxaa please imaada because inaa ogaatiin waa ciyaalkiina dadkan dhegeysta waxay igu dhahaan marmar macallimiintii dadka iskuulka markay dhahaan mental health iyo waxyaalahaasaa jiro waalidkeena mana dhegeysanayaan waxay dhahayaan Africa aadayna annakana we call that Africa behavior plan cuniga markii dib lagu arko boom wuu baxay intii la caawin lahaa oo maxaa loo sameyn lahaa marmar waxaa dhacan ciyaalka Africa la geynaa waxbarashadii way misgareeyaan dhibkii weli wuu haystaa way soo noqonayaan haddana annakana laga rabaa inaan waxaas sameyno oo fix gareeno so iskuulada la xiriira dadkan waa 8 saac inigaada haystaan maalin kasto waalidka labaad waa insha Allah la tahay wacyigelin in loo baahan yahay bulshada in barnaamijyo loo qabto hadday tahay waalidiinta hadday tahay kuwa gaara oo dhalinyarada oo laga wacyigelinaya arrimaha la xiriira mental healthiga iyo waxyaalaha keena cali waa aad baa loo baahan yahay Axmed I think community ahaan waa wacyigelin oo xooga u baahanahay xanuunahana waa xanuuna sii soconayo oo kaliya nama saameeyaan Mareykanka oo dhan ma saameeya laakiin community kale wax naga duwan yihiin waa aqoontaas iyo programmo badan baa u banaan iyo resources badan baa u banaan anada luqad la'aantii iyo information badan oo meesha yaalin waxa loo baahan yahay marka inaan programmo badan la sameeyo oo sidii informationkii dadka loo gaarsiin lahaa
anigana waxaan ku darayaa waxa maanta programkan Cali ani Axmed waxa u sameeynay waxaan rabnaa dadka Soomaalida inaan la socodsiino dhibaatooyinka ciyaalkeena haysto qof attentionkeena inaan ciyaalkeena ku soo celina waaye maxaa la dhahaa barnaamijkan oo mental health-ga iyo suicide in laga hadlo waaye St. Cloud iyo meelaha kale ta Minnesota dhan waxaan ku yaalaan non-profit badan oo Soomaali ay leedahay kuwaasoo dhan waxaan dhihi lahaa please mental health ka hadla events sameeya had last week hadda la soo dhaaf wiil yara dhintay oo Wilmer ku dhintay oo suicide ku dhintay oo isdilay waxyaalahan haddaan ka hadlin oo shub ka dhahna oo aan ka xishoon oo information ka raadsanin weli way sii soconayaan in ciyaal badan asaas isku dilayaan oo Soomaali ah so walaalayaal waxaan iga baryayaa qof oo non-profit u shaqeeya hadaa tahay mental health-ga ka hadal event sameey non-profit badan organization-kooda inay mental health dadka ka caawiyaan way ku soo qorteen please sameeya dadka kala hadla information-ka baasgareeya caawiya resource-ka dadka ku xira intaas ayaan rabaa haddii ilaahay idmo barnaamijka yaga inaanu kusoo gabagabayno aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa barnaamijkayga maanta waxaa noogu marti ahayd Deeqa Yuusuf oo iyadu ah social worker ka shaqeysa iskuulaadka macalina laakiin warbixintan hadda iyadu shaqsiyan isku xilqaantay inay bulshada ay kala hadasho arrimahan si gaara sidoo kale barnaamijkan waxaa nala joogay Cali Aadan oo isaguna ah milkiilaha Bridge Healing Center oo ah xarun dadka ka caawisa arrimaha dhimirka maskaxda iyo muqaadaraadka barnaamijka muqaadaraadkana marar badan baan idaacadan aan ka hadalnay hadii ilmo dhashay oo isticmaalo muqaadaraadka ama xaalad mental ay haysato waa xarunta kaliya oo ay maamulaan dad Soomaali ku hadla falan la xiriira intaas ayaan ku gabagabeynayaa barnaamijkayga maanta aad baan idinkaga mahadinayaa Cali iyo Deeqo amaansantahay Axmed